sugayahan Baraawin oo Soomaaliya magac weyn ku leh barnaamijka xagga sugaantana aad ugu dheereeya barnaamijka caawa ka qayb qaadan doona isaga ayaana dadka weydiin doona su'aalaha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan oo aanan filayn iyadoo kale in laga samayn karo Nairobi sababtu waxa weeye waxaan isiri dadkii dhaqankii iyo hidihii iyo wixii ay yaqiineen oo ka dhaxeeyayba sidii siyaasaddu ay gabaabsi u noqotay iyadoo gabaabsi way noqotay marka aad baan ugu faraxsanahay weli waxaa in la xuso mudan nimanka dhalinyarada ah oo soo abaabulay waxaan filayaa markii waddanka lagu kala yacay oo dagaalada sukaya dhaceen inaysan garanayn in looga sheekeeyo mooyaane marka wixii waayeelkii gabay ayay garteen baan qabaa waana ku mahadinayaa anoo idinka wakiila cidna wakiil lagama dhigin laakiin hadda looma baahnaba in cid wakiil la yidhaha qof kastaa waa iska oran karaa wakiil baan ka ah marka su-aalaha halkan yaala caawa waa su-aalo ku saabsan dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida dhaqanka iyo hiddaha markii la yidhaahdo waa wax guda weyn waxyaalo badan baa soo gala waxaa soo gala wax alla wixii nolosha ku saabsan oo dad meel degani ay gaar u leeyihiin ama xagga noloshooda ay ku kaabaan marka si markii loo yidhaahdo waa ilbaxnimo ilbax weeye Soomaalidu waxay u badnayd reer miyi macnaha ilaa waa dhow 80% waxay ahaayeen dad reer miyi ah magaalooyinku waa lagu yaraayeen dadka xeebaha joogaa ka kalluumaysta ama ku nool aad u yaraayeen miyiga ayaa badnaa sidaa darteed baa dhaqankii reer miyigu wuxuu noo noqday kulligeen dhaqan marka su-aalaha halkan caawa aan idinka weydiin doonaa su-aale adag ma aha xataa qofkii aan baadiye tegin laakiin dad uun baadiye joogi jiray la sheekaystay wuu garan karaa waa su-aalo la soo jilciyey oo meelo badan taabanaya marka waxaan ku dadaali doonaa inta aanan su-aasha aanan soo jeedin inaan weliba jilciyo xoogaa si dadku wax u helo oo alaabtaan in lala laabta mana la odhayo marka waxaan codsanayaa oo kale si ay arrintu u noqoto arrin daacadnimo ka muuqato iyo hufnaan qofka su-aasha ka jawaabaya inaan qof kala caawin oo hoos wax uga sheegin ama wax caynkaasi sababtu waxa weeye markaas equal opportunity ma jirayso marka laba in la noqdo maaha koox iyo koox maaha qof qof weeye saas oo maa su-aasha koowaad markii aan dhammeeyo baa gacanta la taagayaa soo maa qof la doorto aad idinku aad doorataan hadhow u sheego su-aasha koowaad Soomaalidu waxay dhaqataa xoolo badan xoolaha weliba nimcooleeda la yidhaahdo waa 3 oo ay ku nooshahay waa geela looda ariga saddexdaas waxay ugu jeceshahay Soomaalidu geela taasaa lagu ibtileeyey haddii dagaal dhaco geel buu ka dhexi jiray haddii gabar la guursado waxaa laga bixin jiray yarad geel waxaan ahayn laguma qanci jirin hadda dollar baa yimid geela ayay Soomaalidu ugu jeceshahay xoolaha ay dhaqato waxaa jira marka iskama dhicina sababaa jira sababahaas waa badan yihiin waa la tixi karaa su-aashu waxa weeye marka laba sababood oo geela looga jecel yahay xoolaha kale adoo soo koobaya
شك سؤال والله قلت سماعة انت قيس انت كان لو بلاو انت كنت قيس سنة عصر بلاو ما بعرفش اقول من عندك labada sababood ee Soomaalidu xoolaha shaqeeyo way jeceshahay waa midda koowaad waxa waaye tibka ama biyaha waqtiga uu moogaan karo waa adkaysashada number 1 uu adkaysan karo inuu muddo badan biyo la'aan ah iyo inay rarto maadaama aan reer guuraan hayna waan ognaa labadaas sababood أحمد صوت أنا هدينا ما دام أبيك وساشي وقولي أنا بقول أحمد ما صعب ما دام ساشي وقولي وكل شيء أحمد ربنا قد قبل يقولي نسيبه على إنه قاطع أول مرة ذكر الدول حر كأس واي أو قاطع أحمد الحمبلي بدومية ولا يحرر كبر عكس سكال مكان دي سبرنا وقولي أيام كله أحمد وعملينا التنصيف عفاية مركا وشاقي قالوا ما دام كل Soomaalidu ay degto Soomaalida dhulkeeda kul Soomaalidu degto ma jecel eragaasi waxaad moodaa in ay ka guuri doonto mar dhow dhulka Soomaalida waxa weeye waa biyo yar yahay marka biyaha lama siin karo maalin walba lama helo hel gacanta lagu qoday ka cabaan abaaro badan baa dhaca marka xoolaha waxaa ugu fiicnaanaya mar walba kii adkaysi u leh biyo la'aanta taasi waa adkaysiga xagga oonka adkaysiga socodka dheer geelu wuxuu socon karaa yani dhul dheer oo yani aad u kala fog ayuu u kala guuri karaa waxaa kaloo geela lagu jecel yahay intaas keliya ma ahay caanaha badan ciddii hali u dhasho waa ku noolaan karaan iyaga iyo carruurtuba caanaha keliyana ma ahe waxaa lagu jecel yahay oo kale hilibka badan وهي بداية هي كواحد مركز كير حسن أما تيجي على قصو عذاب بدن أي هدي على كورة يا بيت الله سلا درتين كير غير كلية ما قصو هل أما تي عذاب بدن بعقصة قرب على إسكان واحد نوع عليا مركز أري وحاس على السيا مركز كير واحد هذا واحد شرايس واحد ويوانو markii hilibka loo baahdo waa lagu shirkoobaya laakiin marada kaliya xasharaay ama tiga bixinaysa arag bay bixinayaan tii kale uu sheegay waxay ahayd waa lagu guuraa buu yiri waa lagu guuraa waa xogaa waa u dhaafay laakiin dad dibida ku guuraa waa jiraan dad dameeraha ku guuraana waa jiraan laakiin isagu wuxuu kaga fiican yahay ratigu waa ka qaad weeyahay intuu qaadaya badan aqalkii oo dhan carruurtii waxarigii waxay haystaan dhan bay saartaan wax badanna ma haystaan taasi waa su-aashii koowaad baa dhammaatay su-aasha labaad Soomaalidu waxay leedahay sheeko xariirooyin badan sheeko xariirooyinkaas waxaa ayeeyo ama hooyo ayaa waxay u sheegtaa carruurta oo u gudbisa waagii Soomaalidu ay isku wax taqiin isku sheekooyin bay yaqaaneen waagii iskuulka isku manhajka wax ku baran jireen isku sheekooyin bay yaqaaneen laakiin hadda waxaa muuqanaysa qolo walba qoraa wax u dhigatay manhaj ku samaysay dad Soomaali oo haddii la ku leeyahay soo wada bixi doono oo iyagu isku fakara inay iman doonaan waa ka niyad xumaya anigu laakiin sheekooyinkii la wada yaqiin dadka halkan joogaa waxaan filaya wax ka soo gaareen marka su-aasha labaad waxaa weeye waxaa jiri jirtay qof dumara oo boqorad ah oo Soomaalida dhexdeeda caan ku ah oo keligeedba Soomaali boqorad ku noqotay oo meesha la yidhaahdo ceelaayo oo waqooyi bari Soomaaliya xarunteedu ahayd waxaa laga rabaa magaca boqoradaas
iyo wixii ay caanka ku ahayd. صفقة كبيرة ما دام صفقة سمكة صفقة نصيرنا ما كان جوابها صفقة أي سيرنا جوكات وقعت حياة وتتلقى من جقدار صوبي تفضل بني على عشبة هذا قرأت سؤال الرجل على الرويرة واش waxay caan ku yahay laakiin ma dhigay waxay caan ku yahay iyo waqti magaceeda magacii waa xigta laakiin waxay caan ku yahay ma dhigay الرويرة waxay caan ku ahay ragta ragga ay dhaqayaan ay caan ku ahay dadka ay ragga mataqaana sida loo dhaqo ay dumarka kale u fadhiyo su'aasha sida qaybtaan filay magacaaga fadlan hore iyo waxa tahay xubin hadda tahay ma jagaha tahay qof caadi ah hadda ولي ماشي garsoore kubad cag oo gaboobay taas ku filan magaca waa la sheegay raggii ku faari jirtay oo ku jawaabo su'aasha Bashir Maxamed Jaamac waa sax gabadhu horta waxaan u qaatay gabadhu inay tiri arweela la oran jiray okay ninkii hore aa sheegataa raggay faanin jirtay ya raggay faanin jirtay aniga waxaan qaatay raggay faanin jirtay intaas على أي حال waxaan malaynayaa hadda su'aashaas waa la isku qabsaday qolada go'aan ka gaaraysaa may إذا جاء هذه صفحة هي قبل إلا سيا أول مرة تجعلها لاني هذا صفحة مصر أيوة أول مرة صدرنا إنك استوعبت كانوا قبلنا هكذا فاني جتان وما تقلبنا بشير مضادك قطع هاي طبعا سينا عبيرة طبعا اللي بتريق على يقصد بشير قبل هو كلامنا هنا أول مرة تسينه مركا أدور هذا كورة له هو هذا الناس صوته وساج صوت حامل إذا جاء يعني صوته وين يعني كسر عد كذا قبل كامنا لكن هكذا فاني جتان وقاطع عندك كده وتستمع عد كده فما بعد waxay ahayd sheeko xariirada tan saddexaad waa taariikh Soomaalida qarnigii labaatanaad qaybihiisii hore waxaa jiray u soo dagaalamay xornimada gobolladii Soomaaliyeed ee gumaysigu qabsaday haddana kala qaybsaday shiikhaasi wuxuu la diriiray Ingiriis Talyaani iyo Xabashi waxaad sheegtaa magaca sheekhaas iyo magacii loo yiqiin ciidamadii uu hogaaminayo kula dilaahayay gumaysiga بليس صف لنا عاصم تصديق البليس يكسر صف كلا يتحين عبد الناصر صف نقول إن عبد الناصر أدور عليه واحد بليس سؤال بدنا يجري هل سؤال بالإيمان وإلا إذا ريت من سؤال صف نقول دونا صف وقت وصف في نسيب وهذا هي قال دور بامريكا هي عبد الناصر كل على عبد الناصر محافظ على الناصر سيد محمد عبد الحسن ويسر حوالي القناة راوش فاستح هذا يا كجواب شيء سؤالها هذه الفلوسين كل يوم ملينا يا أول مرة أنا خف عشان دونا ملأ إنك استوى اللابتوب كم باقوية لكن قفك اللابتوب كان هذا دونا نصيب لي يلا حق دولار كار لكن والله ما دونا ولا ما حق سحافة دونا ستين عاد
عبد الناصر وما صدقاي منو ولا ما دونا صفقة أو سوق أنا دونا سؤال هذا بيستلم سؤال وايد هذا سؤال شيء. waxa weeye Soomaalidu waxay ku saabsan yihiin waxay ku saabsan tahay xagga cuntada Soomaalidu way ogtihiin waxay ku nooleyn hilib iyo caano khudaar iyo waxa iyo maan aqoon hilibka iyo caanaha marka arrimo kale ayaa waxaa jira مثلا marba waxa la heli jiray habooga ama masriga iyo waxaas iidaan baa loo baahanaya iidaanka loo baahanaya waa subag inta badan sida caday ma jirin weligaas subaga caanaha ayaa laga heli jiray sida haddaba looga helo laakiin hadda warshadaha ka soo saara Soomaaliduna waxay taqaanay farsamo ay ilbaxnimadeeda ku gaartay oo ay caanaha subaga kaga soo saarto si ay wax ugu iidaamato waxaa la rabaa farsamadaas magaceeda حقيقي صح ويه أنا بحقيقة أول مرة صوته كل يوم موبايل مية حاضرة عد مية حاضرة وحي حاضرة طبعا وحكسيد أنا جودية أوه ساعة أي سؤال أفراد مين سؤال شنو ضاي أفراد أول ساعات قرب بدن هي قلب كلام فرب بدن أي شيء أنا ويكون مع هاي جوابتي كجوابتي أول مرة فرب بدن أي شيء وولي بس ساعات هي قلب كلام فرب بدن كجوابت هاي أي شيء أنا وفننبدأ يرسل في اليوم قيمتي رواية الجيل أي كل جبتي وحوي عنها نلست وفن جار أرتوي سؤال طبعا عنها بقول له يا كذا دقائق وهم واحد عن عنا ليه وكان يقول عظيم هم واحد هذه عنها صارت هسه ما هي كله يبقى حوالي هذا ولو هجى بالمرضى رجوع يا رجوع ما هسه مركا عارو لسه اسمه حوالي وحصل على التقييم وكمل وحيالي يهم الانسان المحمدين سؤال الشباب waxaad sheegtaa markaan waxaan hadlayaa nin rag su'aashaan ragga iskale gaaro waa ka xumahay waxaad sheegtaa xaaskaaga walaasheed ninka qaba waxa aad isu tihiin ملعب تفضل بليس ملعب اللي هو حصل ما هو شيء ما الشيء ما يوسف magacaygu axmed fashto waxaan lahaa ooriya wadaag طيب جواب تسويق من أول مرة أنا صفقة فوكسي صفقة سكالة ما صفقة ما يمكن بليز صحيح هذا يكون gabadha ayaa sheegtay waxaana qabaa haddii la yidhaahdo ooriya wadaag ma fiicna waa ceeb وهاي مقعد كستو أنا فاهمين لعك دولار على عشان كنت هذا أول مرة دولار إنه بطل صار دولار لعك هذا أول مرة هذا ويمو مقعد أي رحمه لعك دولار أو $50 أي كل ستين $50 أي أول مرة ما شيء